عرس قيرو channel. لايك سبسكرايب. قبلت زواجها قبلت زواجها وزواجها ونكاحها بالمهر المذكور الصومالي بشيء أنا وحنكي مهر يوم بنكاحها أنا مؤمن محمد أو إذن جين كمهريو أو إذن جين كمهريو مهر جنة وحواي فانتون غرامة وذهب وبالشعر يقولوا بالخير ويا روسو برقوركو هشيسا بلانتي كدبايسي وبالشعر يقولوا بالخير ويا روسو برقوركو هشيسا بلانتي كدبايسي Hello, my baby boo. Fiya muda suganay noorumooday maanta jabi waa hersare farxadan dareemaya lama koobi karo. Hello, my baby boo. Fiya muda suganay noorumooday maanta jabi waa hersare farxadan dareemaya lama koobi karo. Mudaan u samreene, mudaan u dhafreene. رياضي مولا نورمي كل كان بيبي وينو أهاتي مدان وسمريني مدان ودفريني رياضي مولا نورمي الله أكبر ولا قوة إلا بالله العلي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا قوة إلا بالله اللهم صل بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير ونادي وذكركوكما هو مهل اسكوا هذا اسكوا يعني خيرك قرنا أكلوا يعني واحد بالخير هو اسكوا دمقادو اسكوا ديرنحو ولا جدالايو داعد اسكوا هذا كفر هذا كله دائما بالخير شيطانك قريبنا قشنك باسطة شيطانك قريبنا غادركم عاسي لقد هذا شرفته قشن باسطة على ذلك كلكم قادر markale ayaan leenahay soo dhawaada waxaan ku gudbinaa barnaamij xafladeedka aan ugu dabaaldegayno ama aan markaati kaga noqonayno nikaaxa arooskii aroosada fartii faraantiga faraskii geeyada macallinkii macallimada boqorkii boqorada walaalaha iscalmaday lamaanaha iscaashaqay ee wacsiiskeen calafkooda meel wada dhigay ee caawa laga bilaabo ceesh wadaagi doono kuwaas oo kala ah mudane kamaal cabdilxamiid muumin oo ku magac kamaal cabdul iyo marwo hani muumin maxamed waxaan idin dhihi lahaa runtii soo dhawaada kula soo dhawaada gacmo furan niyad furan calool furan qalbi furan iyo waji furan waxaad leedahay dhaawacayna waxaad dhisteen niyadeena maadaama aad soo ajiibteen yeermadeena waxaan insha Allah تعالى halkani aan jecel lahay in aan dabaaldegeeni inta uu socdo dadweynaha ka soo qayb galay xafladda aan ka codsanaynaa in ay noola ilaaliyaan nidaamka iyo waliba deganaanta iyo ixtiraamka iyo waliba sabarkana inay muujiyaan waayahay waxaan dhihi lahaa dadka guursaday wayba guursadeen kuwa aan guursanna insha Allah تعالى idinkana dadaal badan sameeya waayo jiro weeye iskaabul jahwareer iyo duumo iyo nolol aan jihaysnayn jaliilkaaga haddii uu juhdigaaga gareeyo bal ka jeedsan doobnimo ayaan ku dhihi lahaa waqtiga ayaan si kulaalaya weli waxaan ku jirnaa barnaamij xafladeedka aan ugu dabaaldegayno nikaaxa arooskii aroosada kamaal cabdilxamiid muumin iyo marwadiisa cusub hani muumin maxamed mar kale aan leenahay hambalyo runtii nikaaxu waa sunnada ambiyada iyo salamaraya nasabka sidoo kale waa calaamadiyaha shaydaanka iyo ciisayaha islaamka waxa uu sifeeyaa sinada waxa uu sameeyaa samaha waxa uu laabaa aragga waxa uu ilaaliyaa farjiga waxa uu isku keenaa kuwa kala fog waxa uuna kobciyaa tiradeena sidoo kale waa sumad dhowrsanaan iyo sabab loogu samato go'o silaca waana diinta barkeeda iyo bilow bulsho abuuris
sidaas darteeda buu nabigeena suuban ee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dhalinta awoodda u leh ugu booriyay in ay guursadaan ruuxa aan awoodinna uu soomo waana tan nabiga alayhi salatu wasalaam xadiis uu ku leeyahay yaa macshara ash-shabaab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj faman lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija sidaas daraadeeda waxaan idin dhihi lahaa u tartama guurka si uusan taranku u tirmin وترتب جورك سوسن ترى وترمين تلاب والبنا وتلسارو الله توسيا توكتا إلا أن توافق تلسارتي متى